haddii aad ka mid tahay dadka markay WhatsApp-ka statuska muuqaal ama qoraal ay dhigaan mar labaad haddana inta Facebook imaada qoraalkii ama muuqaalkii dhiga oo laba shaqo qabta muuqaalkan waa muuqaalkaaga waxaana kugu tusi doonaa inaad hal shaqo qabatid meesha aad laba shaqo qaban lahayd tusaale statuska WhatsApp-ka ayaad dhigi doontaa qoraal ama muuqaal isla qoraalkaas iyo muuqaalkaas si automatic ah ayuu usoo dhigmi doonaa Facebook statuskaaga ama messengerkaaga labadaba halka markii hore dadka qaar ay samayn jireen inay laba jeer wax dhigaan oo marna Facebook uu dhigo marna WhatsApp ka dhigo muuqaalkan waa muuqaalkaaga la wadaag saaxiibadaada ku soo dhawaada farsamada maanta biyaal si farsamada aad u samaysid waxa ugu horeeya aad samaynaysid waxay tahay oo laga rabo marka koowaad ima WhatsApp-ka qaybta settingska kadibna waxaa ka dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay privacy marka imaatid waxaa kasii dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay status halkan waxaa automatically waxaa laga baahan yahay inaad furo applicationada aan raba in automatic u dhimaan aniga Facebook waa isticmaalaa Facebook markaa Facebook doorto isla markii wuxuu soo bandhigi doonaa akoonada yani tusaale kale hal akoon haduu yahay isla akoonkaas ayaan ku dhufanayaa kadibna continue ayaa taabanaya continue markaa dhaho wuxuu leeyahay xogtaana dhici doonto sidaan wax u dhici doonaan wax walba aad soo dhigto akoonkaaga statuska automatic xagee ay doonaan marka waxaa leeyahay allow finish marka haddii aan sidaan u fasaxo mar waliba statuskii aan wax soo dhigayo waxaa fududaanaysa in aanan shaqo labaad qaban oo si automatic ah Facebook u soo dhigmo hadda waxa ujeedaan story waxa uu noqday Facebook story-ga tig ayaa fuushay Instagram-ka si lamid ah asna tig ayaa furi karaa waan xiri karaa tusaale kale hadda waxaan dhigi rabaa statuska sawirkan si sawirkan aan u dhigo hoos wuxuu iga siinaa statuska qayb kale oo Facebook ku qoran tahay qaybta hadda taabto waxa ii soo bixi doonto sawirkan aan dhigayo Facebook ayuu dhigaya hadda waa ka xiri karaa hadda ka xiro statuska WhatsApp-ka biso ku ekaana hadda u furane labadaba hal mar ayuu dhigaa